ma soo noqonayo. Markii waalidka ila xiriirana wuxuu leeyahay arrintii waa ka baxay. Haddana nin kale u yimid sidoo kale. Ninkii labaatanaad markii la marayo qisadan qisa cajiib badan waaye. Gabar dhalinyaro aad u qurux badan oo guurdoon ahayd ayaa waxaa dhacaysay nin u imaanayo. Markuu u yimaado cidoo la joogo uu la sheekaysanaya. Gabadha aada loo ilaalin jiray. fadhi weyn ay lahaayeen iskala sheekaysanaya. cidda waxay rajaynayaan ninka markuu la soo xiriiray hubiyaan inuu yahay nin wax bartay oo gabadha u qalmo ay u ogolaanayaan inuu guriga yimaado. markuu yimaado ilaa gabadha jaamacadii ku soo arkeen markaasuu la fariisanaya ninkii waxyaab badanaa dhacay. nin kasto markuu cabaar la sheekaysto uu istaagaya waa degdegaya uu baxaya. wax yar le markuu la sheekaysto ma soo noqonayo. markii waalidka ila xiriirana wuxuu leeyahay arrintii waa ka baxay. haddana nin kale u yimid sidoo kale. ninkii labaatanaad markii la marayo waalidiinta murugaa soo gashay. ana xitaa waalid waxaan ahay gabdho dhalay alxamdulilah. haddii gabadhaada oo kii soo doontaba ka noqonayo waxbaa ku galayo cuqdadaa ku galayso. wuu yaabay marka kii ugu dambeeyey aa yimid oo labaatanaad qaraabu ahaa kan marka ay aada isku yaqaaneen. gabadhuu soo doontay. gabadhi markaasi markuu soo doontay wax yar loola joogay isla markii uga cararay waa u yeeran waxay dhaheen kaale ha bixin inaan kula hadalnaa rabnaa. manoo soo noqonaysaa maya u dhahay. maxaa dhacay waxbaan arkay u dhahay. marka qofka markuu u imaanayo ama markuu meelaha ku arko waa gabar caadi ah oo quruxdeedii iyo ilaahay wuxuu siiyey. laakiin mar alle markii gabadha oo agteeda uu soo fariisto oo u soo dhowaado wax kale oo muuqaal kale yeelanaysaa. si kalena way u ekaanaysaa. qofkiina culeysaa laga saaraya. markaasuu qofka u cararaya. markaas kadib wuxuu dhaha ana idima sheegi karo waxbaan arkay mana soo noqonayo. aabihii waa ilmeeyey. hooyadina meesha ku oysay. hooyo wax dhashay waa beer wax dhalay waayo. markii dambe nin sheeqaa siiyey waano. waxaa lagu waaniyey ducadan haddaa akhrisataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo. ducada marka dadka qaarkooda hal tafsiiray ku fasiraan inta badan laakiin maanta aan fasiraya. ducadaas waxa waaye laa xawla walaa quwata ila billah. dadka badana waxay ku fasiraan laa xawla xeelad ma lihi walaa quwata awoodna ma lihi ila billah. macnaheed waxa waaye xeeladna ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisaa ah xeeladii fiicneed. awoodna awooddiisa wax ka saraysa ma laha. ilaahaasaa hoos galaya. intaas waaye sax waaye. laakiin tafsiir kale jira oo ah laa xawla lagu fasira oo ah xaala ilaa xaala. anaha xaalad dhib badan ma jirto ilaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad aan dhib lahayn. xaalad faqri ah ma jirto ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad oo hodantanimo ah. xaalad guur la-aan ma jirto ilaahay xaalad guur wanaagsan oo barakaysan ugu bedelaya. intaasaa loogu fasiray waxa la ducadaas akhrista. nabigana dhahay qofkii akhrista u fariista. qisaa jirtay oo kutubta lagu qoro oo waqtiga nabiga ay dhacday calayhi salaatu wasalaam. laakiin hadda qisadan waaqicaan ka sheekeynayna. ninkan waxay ku heshiiyeen isaga xaaskiisa 6 saacadood in 12 saacadood oo habeenkii salaada cishaha kadib in ay kala qaybsadaan oo wardi ay bilaabaan laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah. maamada waxay qaadatay gelinka dambe 6da dambe qaadatay 5 saacadood ugu dambaysa. asagana 5 ugu horeysa u qaatay. waa la fadhinaya wax kale ma sameynayaan. laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah. culimada waxay leeyihiin digriga wuxuu miro dhal ku sameynayaa. aayadaha qur-aankana way tilmaamaan yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu llaha kathiiran wasabbixuuhu bukratan waasiila. wax badan ilaahay xusa. ilahay wuxuu rabaa wax badan in lagu celceliyo. carabkaaga inuusan ka caajisin. 5 saacadood 5 hooyaa qaadatay 5 aabbaha waa isbedelayaan. aabbihii waa nastay wuu hurdooday. maamadii ayaa bilaabayso. markay sameeyeen maalin 2 maalmood 3 maaqan inta kasoo wareegatay ayaa waxaa dhacday aabbihii riya arkay waqtiguu hurdaayay. riya wuxuu ku arkay cod dhahayo gabadhaada waa sixran tahay. waana la sixray. sixirkuna wuxuu yaalaa qolkiina meeshaas hoosteedu ku jiraa. ducada aad akhrisaan darteeda ilaahay wuu idin kashafeye. sixirkaas burburiya guba. waxaa dhacday odayga soo booday sida oday qof bahal qaniino oo kale aada u soo booday isagoo dhahayo waa helna maamida dhahday ma degan tahay okay ma tahay ha okay aan ahay riyaan arkay waa orday kaale isoo raac u dhahay
meeshii loo tilmaamay uu aaday oo guriga ka mid ah jargon hoostiisa waxaa ku jiro warqado la duuduubay uu ka soo saaray oo wax uun ku qoran waa sixir. waa gubeen. markay gubeen dhammaantood way qubaysteen ilaahay 2 rakac u tukadeen sujuud shukr. fiiri maalinta ku xigtay guriga la yimid yaa imaanayo nin guurdoona, nin oo jaamici ah oo dhaqan oo akhlaaq u dhamaystiran gabadhuu rabaa. kuwa kalena haddana waa iska daba yimaadeen. markaasaa ciddii waxay kala garan waayeen cidday u doori lahaayeen. nin walba gabadhuu rabaa inuu guursado. markaasay dadka u sheegeen qisadan, culummadana way u sheegeen qisadan saasay nagu soo gaartay. laa xawla walaa quwata ilaa billaah haddaa ku celceliso ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo albaabadiisa kaa xirmay ilaah uu kuu furayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.